kadib magacaabistii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho magacaabay gudoomiyaha cusub ee gudiga khilaafaadka dhulka ee gobolka Banaadir mudane Cabdullaahi Xirsi Diirshe ayaa waxa uu maanta duqa magaalada Muqdisho mudane injineeriis uu kulan gaar la qaatay gudiga khilaafaadka dhulka iyo gudoomiyaha cusub ee gudiga khilaafaadka Cabdullaahi Xirsi Diirshe isagoo kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa arrimaha cadaaladda iyo in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay sidii muwaadiniinta Soomaaliyeed ee sida sharci darrada looga haysto dhulkooda dib loogu celin lahaa waxa uu sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir kala hadlay xubnaha gudiga khilaafaadka dhulka in maamulka gobolka Banaadir uu la xisaabtami doono cid kasta oo si musuqmaasuq ah ku kacda arrimaha la xiriira dhulka kulanka markuu soo ilaaday ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriisow waxa uu warbaahinta u faahfaahiyay doorka uu maamulka gobolka Banaadir kaga aadan sidii dadka Soomaaliyeed ay cadaalad u heli lahaayeen bismillaahi raxmaani raxiim mase ujeedeen maanta kulankeena wuxuu ahaa kulan aan la yeelanaynay guddiga xalinta khilaafaadka dhulalka oo aan gudoomiyaha cusub ee guddigaas mudane Cabdullaahi Xirsi Diirshe iyo guddiga aan isku baraynay ujeedaduna ahaa sidii loo dardargelin lahaa guddigaas xalinta khilaafaadka iyo howlaha muhiimka ah ee bulshada u hayaan sababta aan ku xulanay Cabdullaahi Xirsi Diirshana waa qof rugcadaa ah runtii aan aaminsanahay inuu hawshan ka bixi karo isla markaana aan doonayn in dib u habeen lagu sameeyo guddigan isaga ah si bulshada kalsoonidooda loo helo anaga waxaan rabnaa khilaaf kastoo jiro in sida ugu daacadsan ugu macquulsan isla markaana kalsooni gelin karta shacabka in loo sameeyo gudoomiyaha cusub ee gudiga khilaafaadka arrimaha dhulalka la xiriira mudane Cabdullaahi Xirsi Diirshe oo dhankiisa warfidyeenada la hadlay waxa uu tilmaamay in cadaaladda ay ka bilaabato guriga isla markaana ay ku dhamaato madaxda qaranka waxaan leenahay marka laga hadlayo cadaaladdu ummadoo dhan baa ka timaadaa mooyaane kama timaado qofka qaaliga kaliya kama timaado qofka marka waxa uu leeyahay uu raadsanayo xaq buu leeyahay inuu wixiisa raadsado laakiin wuxuu lahayn markuu raadsanayo xaq darro raadinaya sida darteedna waxa dhibaatada keenaya waa inta waxaan leenahay ummadana cadaalad bay u baahan tahay cadaaladuna guriyaha ka bilaabanaysaa mas'uuliyadda sarena ku dhamaanaysaa hadii Ilaahay yiraahdo xilkaana waxaan isleeyahay iyo amaanadan mid aad u ballaaran oo weyn badan oo culays badan weeye Ilaahayna waxaan ka baryaynaa dhammaan qarankeena inuu Ilaahay taabageliyo Nuur Saciid Taaliil aqalka dawladda oo Xamar STV magaalada Muqdisho